السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين. intaa kadib insha allah maanta waxaan rabay inaan ka hadlo in yar qofka marka la sixro sida uu isku daweyn lahaa amba sixirka dawadiisa insha allah. marka alaabta halkan ii taalo ayaan insha allah idiin macnayn doonaa. ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan wax walba dawo ayuu soo dejiyey. sixirkuna waa xaasidnimo, waa qofka ood xaasid ku noqotid ood sixirtid, qofku ilaahay awlaad badan siiyey ood ka jalas noqotid. waa qofka oo waxay maal badan ilaahay siiyey. dadka qaarkood way sixraan dadka amba sixirka waalida. markaa dawadiisa ayaa rabay maanta inaan ka hadlo insha allah. waxyaalo badan ayuu soo galayaa sixirku. qofood jeclaatay wax kaste ood sixir ku samaysidba waa la iskaga daweyn karaa. waxa aada u isticmaala geedkan aan ka sheekeynayo amba buduurkan aan ka hadlayo, ayniintan aan ka hadlayo, dadka hindida ayaa aada u isticmaasha iyo dadka cadaanka ayaa aada u isticmaala, khaasatan gaalada. kuwa kristanka ayaa aada u isticmaala. oo waxa weeyaan waqtiyadii hore ayay muslimiintu aada u isticmaali jireen, laakiin imika waa iska daayeen. oo waxa weeyaan waxyaalahan sixirka muslimiinta qof waxa weeyaan jahilnimo u geyso qof kala sixir moojaane. laakiin hadda dadku kuma badno inay dadka sixraan ilaa dadka jaahiliinta moojaane. marka insha allah sidee baad iskaga daweyn lahayd sixirka amba muxuu ka dawo yahay in aad isku caawisid, naftaada aad ku caawisid ood adiguba isdaweysid. waxaa rabaa insha allah dad badan waxa ay isticmaalaan in ay dad u tagaan qur-aan la saaro oo waxa weeyaan lacag lagaga qaato wixii lagaaga daweyn lahaa xanuunadan oo dhan. marka insha allah ilaahay dartaan uu sheegayaa, ilaahay dartii ayaa idiin soo gaarsiinayaa sidan iskaga daweeya. haddii ay dhibaata nila kulanto aada la kulantiin sixirka waalida oo kale, qofku sixraya inuu u waasho uu rabo oo kale insha allah. marka insha allah geedkan waa buduur, iniintan waa khardal mustard weeyaan english, khardal ayaa leedaha carabiga. halkan waxaan ku hayaa isagoo madow iyo isaga oo yar huruud weeyaan, laakiin waxaa wanaagsan cadaan markuu yahay. khardalku sidiisaba waa cadaan iyo madow yar oo xigta sida huruudda oo kale. marka khardalka intaas nooc ayuu leeyahay. marka insha allah intaa ku joojin maayo, waan wadayaa. faa'iidooyinka badan ayuu leeyahay, waan ka sheekeyn doonaa. marka insha allah waan waayey isagii oo cad waan waayey, laakiin marka kanaan helay, kanaan soo qaaday. laakiin qofku martuu doonayo inuu isku daweeyo waxa weeyaan kaa cad waa inuu raadsadaa insha allah. oo hadduu xanuunsanayo sixir oo kale amba shaytaan oo kale amba dhibaato haysato, kaas huruudda iyo madowga isku jira maaha. waa inuu doondoontaa ka wada cadaanka isagoo caynkaas, laakiin waa cadaan, waa inuu raadsado. marka anigu masalan waa idiga sheekeynaya oo waxa weeyaan systemkii loo isticmaalayay ayaa idiga sheekeynaya, laakiin qofku waa inuu raadsadaa isagoo cadaana. haddii aan intaa helana waan soo tusi doonaa insha allah. halka khardal baa iyaala, halkan waxaa iyaala baasil ayaa iyaala, maasha allah. reexaan baa leedaha carabiga, reexaan maasha allah aad buu u fiican tahay. halka waxaa iyaala qosdal hindi baa iyaala, qosdal hindigu aad buu fiican yahay, iyo qosdal baxriga labada uu fiican yahay maasha allah. halkan waxaa iyaala zactar baa iyaala, halkan zactar baa iyaala ama teen baa iyaala. insha allah ha laga faa'iidaysto. intaa ayaan rabaa maanta insha allah in aan ka sheekeeyo. marka maxay faa'iido leeyihiin? khardalku faa'iido badan ayuu leeyahay, laakiin ma ka sheekeyn karo, in badan kagama sheekeyn karo khardalka. laakiin waxa weeyaan ayaanba in baan ka sheekeynayaa. khardalku waa laba nooc ayuu yahay, khardal aswad iyo khardal abyad. waxa weeyaan khardalku isagoo madow iyo isagoo cad aad buu u wanaagsan yahay, laakiin layskuma badiyo. waxa weeyaan aad buu adag yahay amba waxa weeyaan aad buu culus yahay. marka insha allah qofku laba xabadood wax ka badan way adag tahay inaad isticmaashid. laba xabadood baari waa iniga arkaya, halkaas 3 baa ku jira. laba xabadood oo qura ayaa ku faa'iido leh. waxaa kaloo faa'iido u leeyahay khardalka kansarka waa ka dawo insha allah. margooniyaan ka sheekeyn doonaa insha allah.
wadnaha waa ka dawo khardalku wuxuu uga dawo yahay insha allah waan ka sheekeyn doonaa waxa sanbabada waa ka dawo irtifaaca daqdul dam waxa dhiiga kaca waa ka dawo sidaad u isticmaali lahayd insha allah waan ka sheekeyn doonaa waan dul marayaa iminka calooshu hadday ku xanuunayso waa ka dawo khardalku waxoo kale haddii ay garaac ka hayso keliyaha hadday ku xanuunayaan waa ka dawo khardalku insha allah waa ka dawo khardalku keliyuhu hadday ku xanuunayaan marka insha allah mar ayaan ka sheekeyn doonaa casiirkiisoo la cabo iyo systemka loo sameynaya waan ka sheekeyn doonaa maanta laakiin waxa aan rabaa khardalka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ayuu ku sheegay 2 aayadood ayuu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kaga sheekeeyey wuxuu kaga sheekeynayaa suurat alambiyaa iyo suurat luqmaan waxa weeyaan aayadda raqam 16 suurat luqmaan waa 16 suurat luqmaan ayuu kaga sheekeynaya ilaahay khardalka xabata min khardali ayuu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay insha allah waa dheeraan doontaa waan kasoo sheekeyn doonaa qur-aankana waan akhriyi doonaa insha allah suurat alambiyaana waxa weeyaan 47 min suurat alambiyaa suurat alambiyaa uu ilaahay ka hadlayaa khardalka labada aayadood ayuu ilaahay subxaana wa tacaala khardalka kaga hadlayaa markaa faa'iidada ay leedahay ayaan maanta rabaa in aan ka hadlo marka laakiin intan doonay inaan ka sheekeeyo mar kale ayaan ka sheekeyn doonaa khardalka faa'iidadu leeyahay iyo xanuunada uu daweeyo laakiin maanta waxaan rabaa inaan kaga sheekeeyo sixirka ma ka dawaa ها سحرك وأكدو سحرك واحد إسكجد وينسا هرد الآن بوكينا قفك أو سوجيدا قفك أو ورورة قفك أو حويان مركز راسيحتي هرد ذا كسو بودا أو شيطانكم مادرتي كسو توري سريرتا أو حويان مركز تي وحويان عبسي أيا قفك كل عسى قلبيسا مركا وأدو خردلك أبيضك كأبيضك أم بكعدانك أيا أدوه maxaan samaynaynaa waxa aan rabnaa in aan idi tuso sidii aad iskaga daweyn lahayd aqalka haddii aad rabtid in aad ku samaysid waxa aad ku samaynaysaa waxaad soo qaadanaysaa baashan baad soo qaadaysaa baashan waa baal waxay samaynaysaa dhulkoo dhanba bif ku odhanaysaa waxa weeyaan khardalka ayaan ku ridaynaa khardalka markaan malqaacad khardala ayaan ku shubaynaa malqaacad khardala markaan ku shubno khardalkii waxa weeyaan monsterka aan nuu sheegayay monsterka aydii sheeg waan tusi doonaa ayaad ku ridaysaa malqaacad ayaad ku ridanaysaa haddaad doonto waad soo ridqaysaa intaad ridqdid oo daxiin ka dhigtid oo calashaan ridqdid ayaad halkaa ku shubanaysaa waxoo kalood ku shubaysaa halkaa baasilkaad ku shubaysaa baasilka qudhadiisa ayaad ku shubaysaa waa kanaad ku shubaysaa waxoo kalood ku shubaysaa قصد الهندية آيات كشويسا ملقاعات قصد الهندية ملقاعات باصلة ملقاعات زعترة يو خردلكن أبيضك ومركو عادي هاي خردلك عدانك آيات كشويسا أنت مركز كدرتين هل كان بعد كشويسا وحوت كلود كشوانيسا حديد هداد هيستيد الحديد وحويان أنا وان كواي مقالة لكن حديد آد بوناكسنتي هدي لحسوستو وقت الجاهلية دي عيالك يا قعنت لوجو حريجري bahal yaro madow iyo wax yaro buuran ayaa lagu xiri jiray marka waan waayay laakiin waa aad buu fiican tahay xaldiidu waxa weeyaan shaydaanku aad buu uga cararaa marka xaldiida dad ay isheed waad ku shubaysaa wax kaste uu shaydaanku naco dhan ayaad halkan ku shubanaysaa markaad inta isku wada dirtid oo reexaanka ku dirtid reexaanka waa baasilka qosol hindiga zactarka iyo khardalka oo mustardka markaad isku wada dirtid waa markuu cad yahay maaha kani aan waan waayay laakiin haddaad aragtiin isagoo cad mustard cadaana ayaa jira insha allah kaasaa sixirkana ka dawaa marka intaas marqaacad mid walba markaad qaadid ayaad ku shubaysaa halkan waa kaa marqaacad baad darsanaysaa mustardka waa ridqanaysaa markaad ridqatid isagoo cad waad qaadaysaa waad soo ridqanaysaa qosdal hindigu already waa iska ridqan yahay waa buudar weeyaan malqaacad baad qaadaysaa isagana baasilka waa iska ridqan yahay isaguna malqaacad baad qaadaysaa baasil weeyaan malqaacad baad qaadaysaa baasilka
yaad ku darsanaysaa. zactarkana malqaacad ayaa darsanaysaa. waxaad isticmaalaysaa malqaacadaas isticmaalaysaa reexaanka gebi xaldid haddaad heshid dhammaan intaad qaadid halkan baad ku shubanaysaa. albaabka kaga qabo meel walba waad ku buufinaysaa. markaad ku buufisid koonayaasha ayuu jinka ama shaytaanku isku qariyaa. markaa koonayaasha ayaad ku samaynaysaa. marka ilaahay subxaana watacaala waa kaa ilaalinayaa. markaan intaa ku samayno haddii ay hurdo la-aan ay hayso waxa weeyaan qofka wuxuu soo qaadi karaa bakadada ayuu soo qaadi karaa. bakadada intuu qaado ayuu silsilada furayaa. waad qabanaysaa bakadada intaad qabatid silsiladaad furaysaa. silsilada markaad halkaa ka furtid waxaad qabanaysaa gacan in ay gaadhayso oo khardalkan ka abyadka ayaad qabanaysaa. saasaad u qaadanaysaa intaasoo kale waxa weeyaan intaasaad qaadaysaa. khardalkaasi waa markuu caddaan yahay baadhi khardalka malqaacad waxaad qaadaysaa gacantaas iyo buuxda gacantoo buuxdaad qaadaysaa. markaad qaadid waxaad samaynaysaa bakadada ayaad ku shubaysaa. bakadadaad ku shubaysaa. markaad bakadada ku shubtid qofku haddii ay hurdo la-aan hayso amba uu hameenkii soo boodayo oo jinkoo kale ka cabsiinayo amba waxa weeyaan maxaa la yidhaha hurdo la-aantu hayso shaydaanka kasoo tuuraya sariirta ayaa layidhi oo waxa weeyaan hurdada u diidaya. hurdo la-aan hadday kugu dhacdana shaydaankii adiga saaxiib baad noqonayseen. marka sidee baan iskaga daweynaynaa waan iskaga caafimaadinaynaa waa inaan systemkaa samaynaa. intaasoo dhan kan waxaa idhi ha lagu shubtaan idhi biyaha aqalkao dhan ha lagu wada buufbuufiyo. tanna waxaa idhi qofku markuu seexanayo makadada ha qaado dhexdeeda ay ku shubto cantoobo maxaa la dhaha khardala waa kacad marka ayaan sheegaya hadda kani maaha wax kale aan ka samayn doonaa kani insha allah. khardalka cadaanka weeyaan waxa weeyaan kaasi ayaad ku samaynaysaa. markaa makadadaad ku shubanaysaa waad ku seexanaysaa hameenkii. shaydaanku waa kaa fogaanaya waana kaa dheeraanaya. maxaan kaloon u baahannahay waxaan u baahannahay inaan qur-aanka ilaahi subxaana watacaala isku daweyno. waxaa ruqya sharciya inaad isku akhridid haddii aad xanuunsanaysid. haddii aad maad aragtay adu aanad garanayna qof garanaya inaad u tegsid oo ruqya sharciya igu akhriyaa tiraadid oo waxa weeyaan waa dawo. qofka waxa wanaagsan in lagu akhriyo ruqya sharciya waxa weeyaan sida qul acuudu birabbi nnaas suuratul ikhlaaska oo kale dhammaan aayadaha suuradahaasi in lagu akhriyo qofka xanuunsanaya ee mariidka. waxa weeyaan marka lagu akhriyaayo waa in waxa weeyaan si aanan qadhuufna ahayn laakiin neef oo kale hawo oo kale la yidhaahdaa qofka marka lagu akhriyo qiraa'at alruqya maca nafisa. waxa weeyaan marka intaa lagu akhriyo waxa weeyaan aayad kursigaad ku akhriyaysaa aakhir aayateenka min qur'aan. waxa weeyaan qur'aanka labada aayadood oo dambeeya waa waxa weeyaan suurat baqara iyo maxaa la yidhahdaa baqara ayay ku taala aayad kursiga iyo waxa weeyaan aamanaa rasuul. aayadda kursigaad akhriyaysaa iyo aamanaa rasuul baad qofka ku akhriyaysaa oo waxa weeyaan waa suurat albaqara ayay ku jiraan. waxaa kalood ku akhriyaysaa suurat alkaafiruun suurat alikhlaas suurat alfalaq suurat annaas. intaasaad ku akhriyaysaa aayado qur'aana oo googo-ana way yaalaan halkan. fasayakfiikahum allahu wahuwa samiicu alcaliim. aayaddaana waad ku akhriyaysaa. way badan yihiin aayado badan oo lagu akhriyo. marka insha allah aayadda kalead ku akhriyaysaa way badan yihiin waxa weeyaan aayado badan ayaad ku akhriyaysaa insha allah. marka ruqya sharciyaha aad isku akhriyaysid waxa weeyaan saa idii soo sheegay waxaad akhriyaysaa qul acuudu birabbi nnaaska waxa weeyaan 7 jeer oo suurat alfaatixa 7 jeer oo alfaatixa aad isku akhriyaysid. aayadda kursiga aamanaa rasuul iyo suurat alikhlaas iyo suurat alfalaq iyo suurat annaas iyo suurat alkaafiruun waad isku akhriyaysaa. dhammaan intaa markaad isku akhrid suurado badan ayaa jirta insha allah. qofkii aada ugu baahan insha allah waan usoo sheegi karaa insha allah. kaasi wax badan waa ku akhriyaysaa insha allah ilaa intaa casaanka o dhan baa lagu akhriyayaa qofku hadduu xanuunsanayo. waxaa kale oo axaadiis ayaa jirta ood ilaah u baraysid qofku hadduu xanuunsanayo. as'al allah alcadiim rabb alcarshi alcadiim an yashfiika amba an yashfiiki 7 jeer ayaad odhanaysaa. hadday gabar tahayna kaafka waa kisra hadday nin uu yahayna kaafku waa fatxa. marka insha allah sidaas ayaad ugu akhriyaysaa. ducada waxa weeyaan ducadaad ilaah u baryaysid 7 jeer ayaad akhriyaysaa. waxaad akhriyaysaa ducad kale
acuuduka bikalimaati illaahi taamati min kulli shaytaani wahaamati wa min kulli cayni laamati. waxaad akhriyaysaa 3 jeer ayaad akhriyaysaa ducadaana 3 jeer ayaad akhriyaysaa. waxaa kalood akhriyaysaa اللهم رب الناس أذهب البأس أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. 3 jeer ayaad akhriyaysaa iyadana insha allah. duco kale jirta allahuma adhab, ducadaasna waad akhriyaysaa mar qura ayaad akhriyaysaa ducadaasi. waxa weeyaan waxaa kalood u akhriyaysaa xasbi allahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabulcarshi alcadiim. 7 jeer ayaad akhriyaysaa ducadaana. waa qofka waxa weyaan markuu xanuunsanayo amba shaytaanka laga saarayo, qofku waxa weeyaan isaga ayaa iska saari kara amba isaga ayaa isku akhriyi kara, laakiin haddii lagugu akhriyana intaas ayaa lagugu akhriyayaa. 7 jeer ayaa la akhriyayaa ducadaasi. ducadan kale waxaa la akhriyayaa insha allah bismi illaahi arqiika min kulli daa'in yu'diika ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. 3 jeer ayaad akhrisanaysaa ducadaana amba lagugu akhriyayaa haddii aad xanuunsanaysid. waxaad kaloo saaraysaa meesha ku xanuunaysa ayaa farta la saarayaa. meeshaas waa in alamka meesha dhibaatada ka hayso ayaa taabanaysaa ayuu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam. waxaad odhanaysaa bismillaah 3 jeer ayaad odhanaysaa bismillaah 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 3 jeer ayaad ku celcelinaysaa. waxaa kaloo inoo hadhay ducada inoo hadho qura acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu waa xaadir. ducada waxaad akhrisanaysaa 7 jeer ayaad akhrisanaysaa. ha laga faa'iidaysto, waa aad bay muhiim u yihiin. intaas haddii qofka lagu akhriyo caafimaad ayuu dareemayaa, shifaa uu dareemayaa. insha allah ku dadaalo qofku inuu waxa weeyaan akhriyo waxaasoo ducaa uu akhriyo. waxa weeyaan haddii aan mar idigu celiyo dhammaan 7 jeer oo alxamdulilah akhriyaayo waxaa idhi suurat alikhlaas, suurat alikhlaas baa idhi, suurat alfalaq, suurat annaas ayaa la akhriyayaa, iyo aakhir aayateenka suurat albaqara aayat kursiga iyo aamana rasuul iyo suurat alkaafiruun ayaad akhriyaysaa. marka insha allah intaa markaad isku akhridid waa jirtaa ducooyin kale oo ka sarreeya, laakiin aayado qur-aan weeyaan. amba qofku waa inuu adaa qof muslina wax ku akhriya iimaankiisuna sarreeyo. qofkan kugu akhriyaya suu rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam faa'iido ayuu u taraysaa oo waxa weeyaan ducadiisa ayaa ilaahi subxaana wa tacaala ka aqbalaya. aayaadka iyo axaadiistaasina waxa weeyaan qofka xanuunsanaya faa'iido u leedahay. waxaan kaloo lagu akhriyayaa suurat alfaatixa 7 jeer. 7 jeer oo suurat alfaatixa ah ayaa lagu akhriyayaa. marka insha allah mid walba 3 jeerna waad ku akhriyaysaa suurat alikhlaas, suurat alfalaq, suurat annaas 3 jeer. aayadahan qur-aanka ee googo-aana waa idiin soo sheegay sida ugu halkay ka bilaabayso kale fasayakfiikuhum ullah wahuwa samiicu lcaliim. aayadaha qur-aanka lagu akhriya oo laga soo dhex saartay in qofka lagu daweeyaa, kitaabkan lagaga soo dhex saartay. marka axaadiista uu yiri rasuulku ku daweeya calayhi salaatu wasalaam ilaahayna ugu barya sida ducada as'alullah alcadiim waxa weeyaan 7 jeer ayaa la akhriyayaa. aciiduka bikalimaati illaahi taamaat min shari min kulli shaytaan. ducadaas waan akhriyahay. iyadana waxaa la akhriyayaa 3 jeer ayaad akhriyaysaa. ducada kale ku xigtay waxaa la akhriyayay allaahuma rabbi nnaas, waxaa la akhriyayaa iyadana 3 jeer ayaa la akhriyayaa. marka insha allah ducadan allaahuma adhab canhu xaraha wabardaha wasabaha ducadaana mar qura ayaad akhriyaysaa, mar qura ayaad akhriyaysaa. ducadii kale aan idiin sheegay xasbi allahu laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabulcarshi alcadiim 7 jeer ayaad akhriyaysaa amba 7 jeer ayaa lagugu akhriyayaa insha allah. bismi illaahi arqiika iyadana waxaa lagugu akhriyayaa waxa weeyaan 3 jeer ayaa lagu akhriyayaa. marka meesha ku xanuunaysa amba meesha uu waxa weeyaan taagan yahay haddii farta laga xidho, farta iyo faryarada yar ayaa dadka laga xidhaa marka shaytaanka laga saarayo. waxa weeyaan meesha uu ku jiro ayuu qofku gacanta saaraya, farta ayuu saaraya. amba qofku hadduu iska xanuunsanayo oo wax kale xanuunahayaan ma haddaad u akhriyaysid oo ducaynaysid meesha xanuunaysa, hadduu madaxu xanuunayo, haddii ay lugu xanuunaysa, haddii meel aliya meesha xanuunsa waa inaad farta saa u saarta. axaadiista rasuulku waxay sheegeen calayhi salaatu wasalaam camuud inaad saa ku samaysid, laakiin camuud ma hayno nadiifa amba camuud nadiifa oo daahira. camuudaheeni ay waxa weeyaan wanaagsanaa dhulkan kolley laguma helaayo, laakiin insha allah fartaad iska saaraysaa qofka meesha xanuunaysa ayaad saaraysaa. marka
waxaad kaloo markaad saartid meeshii xanuunsay 3 jeer ayaad odhanaysaa bismillaah. marka ta u dambaysa waxa weeyaan acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu waa xaadir 7 maraat 7 jeer ayaad ku akhriyaysaa ducadaa qofku hadduu xanuunsanayo. marka insha allah waa inoo soo sheegay wixii lagu akhriyayay iyo waxa weeyaan ruqya sharciya wixii waxa weeyaan ay faa'iido u leedahay. marka ishu way jirtaa. marka insha allah qofku waxa weeyaan sixirkuna uu jiraa. marka waa inaad aaminsanaataa waxa weeyaan qof qurux badan ood eegtid waxa waa il weeyaan qofka markaad aragtid wax qurux badan markaad aragtid mina tiraadi maasha allah waa fiican. waxaa kale oo iyadana dawo ah sadarka awraaqad sadar warqadaha yaree sadarka ee seexinaha u eg haddii la ridqo oo lagu daro oo kani lagu shubo inta halkaa lagu shubo aqalka lagu buubuufiyo aad bay u fiicantahay taasina aqalka lagu wada shubo biyahaasi inta biyo lagu shubo sadarka oo la ridqay sadarka inta la ridqo halkaa lagu shubto aad bay faa'iido u leedahay. sadarkuna aad buu u fiican yahay shaydaanka ayaa ka dawo yahay. marka insha allah waxaa sidaa idiin sheegay waxa weeyaan khardal maaha kani wax kalaan ka samayn doona insha allah. khardalka abyadka amba cadaanka ayaa dawo ah waxa weeyaan qofka haddii la sixro lagu daweynaya. marka waxaasoo dhan inaan ku darsano xildiida qosol hindiga baasilka zactarka wax kaste sida sadarka oo kale. marka wax kasta oo waxa weeyaan jinku diiday amba shaydaanku diiday intaan isku wada darsano inaan halkaa ku shubano caagaayar ku shubano oo aqalka oo dhan ku wada buufino macasiraada doontiin aad ku shubatiin waxa weeyaan haddii aad ka darantiin guriga waxa weeyaan dhibaato ay dhex taalo ilaahay subxaanahu watacaala waa dejinayaa shaydaankuna waa ka cararayaa gurigaasi. marka insha allah maasha allah wuxuu dareemayaan dadkaasi naxariis iyo waxaa deganaan ayay dareemayaan. marka ilaahay subxaanahu watacaala isha iyo waxa weeyaan sixirka iyo dhammaan waxa xun oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala inaga qabto. dad badan oo xaasidiin ayaa jira qofka biniaadamka inuu is ilaaliyo. sixirka waxaa lagu samayn karaa cuntadoo kale lagugu dari karaa waxaa lagugu dari karaa dadka qaarkood waxay sheegayaan inaa afka lagu soo qaadan karo oo waxa weeyaan wax la qaniinayo oo kale afka lagu soo qaadanaya sixirka qofku markuu ku dhunkanayo oo kale ayuu kugu afuufaya waan maqlay. marka waa badan yahay sixirku waa aad buuxin yahay ilaahay subxaanahu watacaala naga nabadgeliyo. marka insha allah noocyo badan buu leeyahay guriga qofka loogu soo dhigo waxa weeyaan waa badan shayaadiinta ayaa dadka sameeyana waxay la saaxiibeen shayaadiinta ay la saaxiibin shaydaanka weyn boqorka shaydaanka ay la saaxiibin. marka insha allah ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga dheereeyo oo waxa weeyaan ilaahayna madso dadka saaxiriinta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu ballan qaaday inay cadaabta galayaan dadka sixraya. marka insha allah ilaah naga dheereeyo qof kastoo bilaadanna inuu is ilaaliyo uu naftiisa ilaaliyo ayaa wanaagsan. sixirku waxyaalo badan ayuu soo gali karaa guriga lagu dhigi karaa albaab kursa lagu dhigi karaa. marka insha allah inaad ilaahay ku xirnaatid markaad baxasid ducada akhrisada bismillahi tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwati markaad soo gelisid ducadaad akhrisatid lagu soo galay allahumma inni as'aluka khayra ma alaj wa khayra mukhrij wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. markaad soo gelisid gurigaad akhrisatid markaad baxasid ilaahay subxaanahu watacaala malaa'ig buu kugu soo daraya malaa'igtaasaa ku ilaalinaysa gurigaaga dhexdiisa kugu ilaalinaysa. markaad seexanaysid ducooyinka oo dhan aad akhrisatid بسمك اللهم أموت وأحيا اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك دعوين كاس ولن مركاد أخرستين مركاد سوق عدا الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه نشور إلهي واكو حدية وانكو إلالينيا. إلهي سبحانه وتعالى وحويان إساق أيا لين عيسى مركاد ودقسي دعاء أخرس ربي وضعت جنبي دعاء أخرستين مركا إن شاء الله وحاس ولن مركاد أخرست مركاد بحسد وإناد بلاويس أنا تكون بحين وحيالها شيطان كوكفا يدستوين بلاويسدو waxayna ugu daran tahay dadku markay caadada leeyihiin shaydaanku waqtiyadaas ayuu galaa. marka ay is ilaaliyaan dadku oo ducooyinka akhristaan qur-aankana in afka lagu hayo ayaa wanaagsan insha allah. waqti markaad baxasidna waa inaad weyse ku baxdaa siduu ilaahay subxaanahu watacaala ku xifdiyo oo ku ilaaliyo waxay malaa'igta ayaa ku ilaalinaysa oo ku waardiyeynaysa. marka insha allah aan ka faa'iidaysana diinta ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay wax walba inoo sheegay is ilaaliya ayuu yidhi. marka insha allah diinta inaan isku ilaalino wanaagsan ee fiican aan isku ilaalino. aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin halkaas ay noogu joogto laakiin insha allah barnaamijka waan wadayaa khardalka waan ka sheekeyn doonaa insha allah barnaamijyo kale insha allah kusoo dhawaada janalka insha allah waa walaashii subscribe-ka layga iyo sheerka walaalihiina kale xanuunsanaya sida ay uga faa'iidaystaan khardalkan mustard weeyaan. marka insha allah sida uga faa'iidaystaan
idinkuna insha allah u tabiya amba u sheergareeya. aad baan idiin salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.